وماتسنتين ودوا عاد وماتسنتها وزير كورن ما أنتو حلقة لقوا قبنا شركة سند لها مدرسة أركت وذاك الصومالية أو هيريتج سنة كيبا بيش أوضم بيس ديسمبر أي قبضته محيك اللي جنتها يصدق سنة هو روح لقوا قبنا يسيدنا أجنها جيبوتي جروا لقوا قبته مركي أفراد بنتو لان محيك اللي جنتها بسم الله الحمد لله مركب أبوه الرئيس لما مدة الصومالية ميرو بقي شوكتوا السلامية بهذا ميدي هن سجارة السلامية هذا سؤال شهادة أصلا نقطة taasi waxay ka dhigan tahay in ay gaartay Soomaaliya gudaheeda jawi shirarka saa u ballaaran oo kale lagu qaban karo gaar ahaan Puntland waxay ku faani karto Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa mahad iskale in maanta amni ballaaran oo shirka noocaas oo kale lagu qaban karo facilitation ballaaran oo shirka noocaas oo kale lagu qaban karo bulsho u diyaarsan iyo xukuumad u diyaarsan in ay maanta ku midaysan yihiin shirka iyo shirar noocyadaas oo kale ah in lagu qabto waa maasantahay laakiin hadda waa sida aad ogtahay Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad xilli doorasho oo teeramkii xukuumaddii hore iyo ay dhamaad ku dhow yahay oo waliba shalay iyo doraadii ay ku ekaayeen xilliga labada aqal ee baarlamaanka maxaa laga filayaa marka shirku maanta kulli bilow yahay wali hadda ma bilaaban laakiin aragtidaada marka la eego maxaad is leedahay shirkan xilligan muhiimka ah ku soo aaday waa laga fili karaa aad ba u mahadsantahay horta waa inaynu mar walba inagu dad optimism ah oo mutafaa'ileyn inaynu noqono waxaan oran karaa waa run marxalad adag oo kala guura lagu jiraa waxaan rajaynayaa isfaham inuu ka soo baxo in ay qayb ka noqdo shirkani isfaham fududeeya marxaladda kala guurka iyo sidii dalka ay doorasho uga dhici lahaa raali la isaga yahay la isla wada ogol yahay waa aaminsanahay marka la eego ka soo qaybgalayaasha shirka hadday tahay dawladda federaalka si mugley uga soo qayb gashay hadday tahay axsaabtii kale iyo dadkii candidateska u ahaa inay madaxweyne isu soo taagaan Soomaaliya 2020 majority-goodii waa ay joogaan dawladihii xubinta ka ahaa dawladda dhexe majority-goodii waa ay joogaan dad badan oo aqoon-yahano ama siyaasiyiin madax bannaan waxaad moodaa inay qayb ka yihiin plus heritage oo khibrad badan u leh shirarka noocan oo kale horena u soo qaban jirtay iyaduna qayb bay ka tahay wixii farsamo ah aad baan marka waxaan uga filaynaa isfaham iyo isu soo dhawaasho si gaar ah heritage iyo Cabdirashiid Caynte iyo ninkale Cabdirashiid Khaliif iyo Cabdiraxmaan Caynte iyo iyagana aad baan ugu mahad celinaynaa in ay ku dhiiradaan shirarka noocan oo kale dalka gudihiisa inay ku qabtaan aad iyo aad baan